madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay airportka Cadaado madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi wasiir xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada soo dhaweynta kadib madaxweynaha oo qaybta nasiinada garoonka kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay heshiiska ay wada gaareen madaxweynaha ismaamulka Soomaaliya ee Itoobiya kaas oo goobjoog ka ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay inay wada gaareen heshiis nabadgelyo iyo iskaashi ku saabsan waxa uu mahad gaar u celiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweyne guuleed ayaa sheegay in labada maamul iska kaashan doonaan dhinaca nabadgelyada iyo la dagaalanka al-shabaab inaan wada hadal halka kula yeelano mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo Itoobiya si loo xalliyo shaqaaqadii dhawaan ka dhacday xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya runtii meeshaas waxaan ku yeelanay wada hadal aad iyo aad u ballaaran looga hadlayay sidii shaqaaqadaas iyo mashaakilkaas loo xallin lahaa iyo sidii si degdeg loogu soo laaban lahayd looguna bedeli lahaa iskaashi iyo wada shaqayn dhexmara labada dowladood iyo labada maamul intaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya gaar ahaan madaxweynaheeda iyo maamulka inta kale iyo dowladda federaalka Itoobiya sida ay noo soo dhaweeyeen sida wada hadalkaas runtii wanaag badan oo muujiyeen iyo sidii ay dhankooda in arrintaas ay xalisato loogu iskaashi iyo wada shaqayn ugu dadaaleen sidaas waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland oo asagana door aad u shariif ah ka qaatay iyo wasiir kaboostada isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ku socday dowladda federaalka Soomaaliya wada hadalka u dhexeeya dowladda federaalka halkaas waxaan ku gaarnay heshiis ugu soo aftirayay dhibkii meesha ka dhacay waxaa la wixii dhibaato jirana xal lagu gaarayay laguna bedelay iskaashi iyo wada shaqayn labada maamul ay yeeshaan gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta iyo dhowridda xuduudda gaar ahaan wixii mushkilad amniga ku wada xuduudda dheer ee u dhexaysa labada dowladood gaar ahaan inta ku aadan si kastaba ha ahaatee heshiiskan ay wada gaareen galmudug iyo ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa abuuraya calaaqaad cusub oo dhex mara labada shacab Axmed Maxamed Xasan Jubbaland TV magaalada Cadaado.